الصومالي ما يأكل الطير أبدا، خاصة اللي جاي من البادية. wadan caalim oo ka mid ah culimada ugu caansan bulshada carabta dhexdooda ayaa ka sheekeeyay waayihii wacnaa ee ay soo mareen ummadda Soomaaliyeed, waxayna sheegeen dhowr boqol oo sano ka hor inay Soomaalidu ahaayeen dad taajiriin ah ayna gaadheen heer ay caawiyaan dadka carabta ah ee ku nool jasiiratul carab ee hadda loo yaqaano khaliijka carabta. sidoo kale waxay tilmaameen waxyaalihii keenay inay Soomaalidu noqoto halka ay maanta taalo, taasi oo ay ku sheegeen inay Soomaalidu ahaayeen dad aad iyo aad u kibir badan. nin u dhashay wadamadan carabta ayaa waxa uu soo maray nin Bakistaaniya oo ooyahaya, kadib ayuu weydiiyey Bakistaaniga waxa uu la ooyayo. Bakistaanigii uu soo kaxeeyey ninkii carabka ahaa wuxuuna tusay cunto meel daadsan. carabkii wuxuu weydiiyey waxa waa maxay, wuxuu ku yidhi waa cunto lagu ciyaaray. markaasuu yidhi maxaa dhiba? Bakistaanigii oo la yaaban ayaa ku yidhi wax dhiba ma laha miyaa? carabkiina wuxuu yidhi haa, wax dhiba ma leh. kadib ayuu ku yidhi sidaasaad u hadlaysaa, laakiin ma taqaanid taariikhdiinna. carabkii wuxuu yidhi taariikhdannadu maxay tahay? isaga oo la yaaban wuxuu yidhi taariikhdiinnu waxay weeye waxaad zakada ka soo qaadan jirteen Soomaaliya oo xilligaa ahayd idinka oo kale dad taajiriin ah. dabcan qaar idin ka mida way la yaabayaan arrinkaasi, sababtoo Soomaaliya hadda waa faqiir. Soomaaliya markii ay ahayd Allahu ta'ala Soomaaliya idinka oo kale ayay ahayd, way sida aad hadda samaynaysaan oo kale ayay sameeyeen, cuntada ayayna ku ciyaari jireen. kadibna ilaahay ayaa ciqaabay, waxayna noqdeen dad faqiiriina oon waxba haysanin. haddii aad idinkuna cuntada saa ugu ciyaartaan sidooda kale ayaad noqonaysaan, ayuu raaciyey Bakistaanigii oo la hadlayay ninkii carabka ahaa. 200 oo sano ka hor tujaarta Soomaalida ayaa waxay u qoreen waraaq culimada Soomaaliyeed, waxayna dhaheen culimada ay ka codsadeen in zakawaadka ay siiyaan walaalahooda carabta ah ee baahan. culimada Soomaaliyeedna waxay fadwoodeen oo fadwa ka soo saareen in zakawaadka la siiyo, sababtoo ah xilligaasi Soomaalidu ma lahayn ruux faqiir ah oo zaka u baahan. sidaasi ayay Soomaalidu u siin jirtay wadamada carabta, gaar ahaan khaliijka, zakada. Soomaalida xaaladda ay maanta joogaan waxaa dhigay cuntada ayay ku ciyaari jireen, heer waxayna gaadheen ay caanaha guryaha ku dhistaan. waxaa sheekhu sidoo kale tusaale u soo qaaday qowmkii reer Saba ee uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka ku sheegay fabadalnaahum bijannatayhim jannatayn. sidaasi darteed sheekhu wuxuu aad uga digay in cuntada lagu israafo ama la daadiyo. muxaadaradaasi ayuuna intaa ku soo gaabiyey sheekhu. Allah barakeeyo. الصومالي ما يأكل الطير أبدا، خاصة اللي جاي من البادية مهما كان، واللي بالنسبة للأكل يعني أضرب لكم مثال. aan tusaale u soo qaadano Soomaalida iyo dhanka shimbiraha. Soomaalidu ma cunaan shimbiraha, gaar ahaan kuwa baadiyaha ka yimid ma cunaan. waa dhaqan u gooni ah. xitaa ninka cuna gabadha laguma daro, loomana guuriyo. ما يزوجون أصلا. والله هاي ثقافات عندهم. أي طبعا. waa dhaqankooda. wax sharciya oo diidaya in digaag la cuno ama shimbiraha kale la cuno ma jiro, laakiin iyagu waxay leeyihiin maadaama ay digaagta iyo shimbiruhu ay wasakhda dhulka daadsan cunaan, waa laga fiican yahay in la cuno. waana dhaqankooda. baadiyaha ayayna asal ahaan dhaqankaasi uu ka soo jeedaa. وهي غير متاحة يعني. نعم.